السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بيال ملك سدوني ذكر شوكتان كسر وهذا ما أنت برنامج هذيني أفلام تهنديكا ورك جدا بيا أفلام تهنديكا ما أنت بنسوق هذا الدنيا ورك هو وين أفلام تهنديكا وحكم إذا أكتر وين أوعانا أي حدنا جيريودا في هندية أفلام تهنديكا وعن كبحي إذا كن واد قرنا إنسانه هندية أكتر كلو وين باكبحي كذب تضاد كهراء أو يسوون أكتر كوعان أها شعتريستاش إنه شعتريا في الماذا تامير كي تلقوه وجيريودا هدنا أكتر بولود كعن كهبا جيريودي واو فيلم هذه هندي قال وسوق الأرض يا أكتر هذه هراء أيها نوالي شري هذا الموضوع ده نوجود دريا هذه أكتر هذه هراء دقوة يان أو يقعدين بكهرة قاعدين يان الموضوع فيلم هذا قصة بيريا قبل وادر كوي هاي أنا الكبور ورد علي أكتر كعان كيشان شيء كبور قبل يسا شنايا أو في المدينة كسر بيريسا ديار بينوت هاي إن دوان أي هالقشة وحنا سوق هذا دونانين وكشروقان أو لو أركي جوردن إيو ولبا وحنا إيجد دونا فيلم كأي وضو قبل دول كم عبراني مقرشة إيو ولبا توفان أو كارتيدي لا صوصارة إيو ورك روح حساب بدن أيام كسر هذا دونا ما أنت ورك كان أفلام تهنديكا oo ku jiro actor aan ugu baaqaya Sara Wasimin filimada ku soo laabato kadib markii filim iska diideen filimada ay jisho iyo Ram Charan biiba amaan ugu qowayay Charan Chifa ka hor filimkiisa soo aadan qodobada iyo kuwa kale baan u eegi doonaa oo aflaamtiisa ku saabsan hadii channel-ka cusub saaxiib soo subscribe garay si aad u hesho saacad kasta iyo waqti kasta macluumaadka ugu dambeeyay ee aflaamtiisa wararka hindiga ugu weyn ama aflaanta hindiga Bollywoodka waxa kamida hindiya tacsi kala baa gashay toddobaadkii hore waxa geeriyooday nin Tamilka iyo Teluguga shaatirista ka ahaa toddobaadkana waxa geeriyooday waliba yaani waxa geeriyooday waqti dhaweyd oo goor dhow ah actor-ka weynaa ee Fiju Qoti magaciisu inaan ugu cusbaada baa laga yaabaa mooyaane hada wajigiisa waa taqaanaysan ninkan waad garanayseen ninkan waa taqaanaan film badan baad ku aragteen isna komikiistu ahaan jiray shaatirista uu ahaan jiray Fiju Qoti waa geeriyooday isagoo jira da'da 77 sano oo wuxuu geeriyooday maalinta isniintii buu geeriyooday oo waanu ka sii gudbayno talaado aan u sii soconaa ayuu geeriyooday actor-kan ee weyn Fiju Qoti waxa lagu yaqaan filmadii weynaa ee uu jiray filmkii Shawlay filmkii Andas abna oo uu la jiray actor-ka caanka ah Amir Khan iyo Saif Ali Khan waan raad Amir Khan iyo Salman Khan uu la jiray Andas abna wuxuu geeriyooday isniintii xanuun muddo soo hayay waxa la leeyahay wuxuu codsaday baa leeyahay actor-ka kan in laga qaado isbitaalka wuxuu rabay inuu gurigiisa hadduu tagayo gurigiisa inuu ku dhinto doonayay marka waxa la sheegay in isbitaalku uu codsaday in laga saaro oo gurigiisa la geeyo halkaas buu ku geeriyooday ugu dambeyntii actor-ka kan weyn ee komikista Hindiya ahaa ayaa la xasuustaa inuu filimkiisa ugu horeeyay keenay sanadii 1964 sanadii 1964 ayuu filimada ku soo biiray actor-ka kan ee weyn waxa lagu xasuustaa filimadii Shawlay Qurbani Karas Nagina Qiyamatak Andas abna iyo kuwa kale oo badan uu keenay actor-ka kan ee weyn ee hadda geeriyooday waxaana filimadii ugu dambeeyay actor-kan uu keenay lagu arko waxa kamid ah gaar ahaan filimka ugu dambeeyay wuxuu keenay sanadii 2007 uu keenay wuxuu ahaa Jana Kyun de Yaron buuxa sidoo kale waxa la xasuustaa filimadii dhawaan uu keenay waxa kamid ah Golmaal 3 uu keenay sanadii 2010 IT Tum Kab Jorgi oo isagu Jorgi uu keenay 2010 iyo Acha Bremki Jasab Kahani uu keenay 2009 hadaba Hindiya tacsiweyn baa gashay actor weyn oo kale ayaa geeriyooday oo ninkan waa taqaanin ma aqaanin midii kartiin filim Hindiya beesa ku bixisay oo inta soo daawin jirtay ninkan ma garanay inta haraadid yaa walaalkay iska bax shaqa marabtide lacagta leeyahay aad ku beeshay meesha mooyaane ninkan waa shactiriyaasha ugu weyn ee filimada Hindiya uu kamid ahaayo Fiju Qoti ayaa loo wada tacsiinaya actor-ka weyn ee lagu magacaabo Jaranjeevi filimada Bollywood-ka iyo Tamilka caanka ku ah ayaa aad ugu mahad celinaya wiilkiisa lagu magacaabo Ram Charan ileen Jaranjeevi wuxuu dhalay Ram Charan waxaana hadda Jaranjeevi soo wada film lagu magacaabo Sayara Narasimha Reddy filimka kanu waxa uu soo baxay 2 October buu soo baxayo hadda saxaafadda buu la sii hadlaya film kasto soo baxaya 2 maalin ka hor saxaafadda ayuu actor-ku hor fariistay ula hadlaa hadaba actor-ku oo saxaafadda hor fariistay waa ninka lagu magacaabo Jaranjeevi filimkan wuxuu uga hadli doonaa film looga hadlay weeyaan dagaalkii Hindiya kala dhaxeeyay Ingiriiska isaga xoreynayeen ayaa filimka looga hadlaya maadaama filimka ka uu yahay ayaa 2 maalin ka harstay soo bixistiisa ayuu actor-ka soo fariistay saxaafadda waxaanu aad ugu mahad celiyay wiilkiisa Jaranjeevi waxa filimkan la wada actor-ka weyn ee Amitabh Bachchan baa kula jira Tamanna baa kula jira wiilkiisa Ram Charan filimka soo saaray uu ka yahay waxa uu sheegay inuu la soo shaqeeyay producer badan iyo director badan ayaan la soo shaqeeyay buu leeyahay muddadii 41 sano
aan soo jiray filimadu leeyahay laakiin wuxuu leeyahay producer ka fiican wiilkayga ma jiro leeyahay wiilkiisa Ramjar weeyaan wuxuu leeyahay Ramjar buu leeyahay wiilkayga waa producer marka laga hadlayo number 1 buu ka yahay buu leeyahay maxaa yeelay wiilkayga lacag 300 oo karar ayuu ku bixiyay buu leeyahay inuu filimkan ii sameeyo siriideeda aan u rumeeyo yacni lacag 300 oo karar buu ku bixiyay leeyahay filimka wiilkayga waxa jiray aabi baa jiray Jaranjiif oo tooro hor ah wiilkiisa Ramjar wad taqaan hadda filimada kan jireen aabi markuu wuxuu leeyahay Jaranjiif wiilkaygu 300 oo karar buu lacag ku bixiyay filimkan buu leeyahay hadda aan jilayno wuxuu inta u sameeyay waxay taa u leeyahay inuu riyadeeda ii rumeeyo waxa uu leeyahay wiilkaygu producer badan baa la soo shaqeeyay director badan laakiin waxa uu leeyahay 40 sano kadib wiilkaygu waa producer-kii ugu fiicnaa ee noloshiisa la soo shaqeeyay uu leeyahay marka actor-ka lagu magacaabo Jaranjiif filimkiisa wuxuu soo baxay 2 bishan ayuu soo baxay October waan arki doonaa waxaana filimkan laga sii deyn doonaa Shinemoyinka Teluguga Tamilka Kannada Malayalamka iyo Hindiguba dhamaan waa laga fiirsan doonaa marka actor-ka kan weyn baa wada waxyaabaha kale aflaamta Hindi inuu weyn waxa kamid actor-ka caanka Farhan Akhtar oo hadda soo wada filimka Sky Bean ayaa waxa uu u rajeeyay Sara Wasim inay dib ugu soo laabato filimada Hindiya waxa uu rajeeyay waxaan rajeynayaa uu leeyahay inay badasho maankeeda inay badasho go'aankeedii hore ahaa inay filimada iska dhaaftay Sara Wasim waa gabar muslimada waxay kamid tahay gabdhihii uu soo caanbixiyay actor-ka Amir Khan filimadiisii uu kamid ahaa filimkii Dangal lagdinta ahaa way ku jirtay iyo filimkii kale Secret Superstar oo ay ku jileysay fanaanadii qarsooneed oo indhaha xiranaysa YouTube-kana ka haysaysay gabadha tan waa gabar muslim ah waxayna film la keentay Amir Khan haddana waxay film la keenaysay dhawaana soo baxaya actor-ka kan ee lagu magacaabo Farhan Akhtar iyo Priyanka Chopra film la keenaysay laakiin gabadhan ayaa go'aan gaartay markii filmkan ay dhameysay kadib waxay go'aan gaartay inay isaga baxdo film jilida iyadoo hadda ku cusub oo 2 film ugu yaraan maraysa ilaa 3 film maraysa way film iska dhaaftay atriishada yariista ah waxaana ay sheegtay in filmada ay ka horkeenayay caqiidadeeda ka horkeenayso yacni in film ay jisho in diinta islaamka wax u dhimayso waxay cadeysay caqiidadeeda inay ku dheelayso in film ay jisho waa gabar muslimad ah haddaba actorada Bollywood ayaa ku xumaaday gabadhan qatarta ah inay filmada isaga baxdo haddaba actorka filmkan la jiraya Sara Wasim waa ninka lagu magacaabo Farhan Akhtar oo filmkan ku jiray aabaha Sara Wasim ayaa sheegay in uu rajeynayo in ay ka laabato go'aankeedii ahaa in filimada isaga baxday yani waxaan rajeynayaa uu leeyahay inay badasho go'aankeedii ahaa in ay filimada iska dhaaftay oo ay dib ugu soo laabato uu leeyahay filimada ayaa rajeynayaa uu leeyahay actor-ka kan ee lagu magacaabo Master Farhan Akhtar actor-ka lagu magacaabo Kartik Aaryan waa wiilkan geeska jira warqada haysta waxa uu isu diyaarinayaa lagu leeyahay duubista filimka soo socda ee Dostana 2 sid arkaystaan filimkan waxa hore u keenay Abhishek Bachchan Priyanka Chopra iyo John Abraham ba u keenayo waa Dostana qaybtii hore Dostana qaybtiisa labaad ragan waxa jiraya wiilkan Kartik Aaryan baa jiraya waxaana la jiraysa gabadha ay dhashay actoradii caanka ahayd Sara Devi gabadheeda Janvi Kapoor markaas Dostana 2 ayuu baraha bulshada ku shaaciyay maanta inuu jiri doono qaybtiisa labaad oo ay isku ku jiraan diyaar garowga filimka kanu isniintii ayuu soo dhigay Instagram-kiisa qoraalka filimka Dostana 2 in ay bilaabatay diyaar garowgiisa oo filimkanu ay jiri doonaan filimkanu qaybtiisa hore waa Dostana waxa isla keenay 2008 baa la sii deeyay oo la daawaday waxaana keenay actoradu kala waa Priyanka Chopra John Abraham Abhishek Bachchan baa jirayo qaybta labaadna wiilkan iyo gabadha ay dhashay Sara Devi ayaa jiri doona Shahid Kapoor wuxuu isla ku maadiistay xaaskiisa wuxuu leeyahay war roonad adoo yar inaan ku guursado sababtoo ah hadda waxaad haystaa buu leeyahay 2 carruur adigoo yar buu leeyahay Shahid Kapoor ayaa guursaday gabadha lagu magacaabo Mira Rajput iyadoo 21 jir ah wuxuuna ka doorbiday atriishada weyn ee Kareena Kapoor uu jacayl ku beeray kadibna ugu baxay gabadhan yariista buu aroosay arday ahayd wuxuu leeyahay Shahid Kapoor wuxuu ku leeyahay Mira Rajput waxay guursatay iyadoo yar buu leeyahay haddana 2 carruur baa haystaa buu leeyahay marka nasiib baad leedahay buu leeyahay adoo yaris ku guursado leeyahay waa ka adoo yar baad 2 carruur haystaa buu leeyahay waad shaqaysatay buu leeyahay xaaskiisa waraysi ugu dambe uu bixiyay ku sheegay mid taa marka Shahid iyo gabadhan lagu magacaabo Mira Rajput wuxuu ahaa mid kamid ah aroosidii Hindiya laga ogaa 2015 bay is guursadeen iyadoo gabadhuna ay jirtay 21 sano jir isagoo aad ugu weynaa waxaan wax ka baranaysay jaamacadda Delhi University oo marka qalin jibinteedii bay ahayd waxaan hadda isu hayaan 2 carruur oo ah gabar la yiraahdo Misha iyo wiil la yiraahdo Zayn marka wuxuu leeyahay war waad nasiibsatay adoo canug yar baad ilmaha fardhinaysa uu leeyahay maxaa ka maqan buu leeyahay tigoo jir baad tahay 2 carruurna waad haysataa actor-ka lagu magacaabo Shanji Kapoor wuxuu aad ugu faraxsan yahay filimkiisa Lose Story in loo doortay film abaalmarin loo yani la siiyay abaalmarinta filimada ugu fiican ee tartamaya in lagu diray filimkiisa
abaalmarinta Emmy Awards baa lagu daray filimkiisii Lost Stories waxaana lagu daray filimkaas aad buu u ahaa mid u fiican actorka ayaa ku faraxsan in filimkiisa lagu daray kuwa tartamaya filimada abaalmarinta ku tartamaya ee lagu magacaabo Emmy sanadka kan actorkan ayaa filimkiisa ugu horeeyay keenay sanadii 1989 waa 1995 uu keenayo Shinji Kaburo waxaana uu ahaa mid kamid actorada ugu fiicnaa hadda 90 filimkiisii Raja sidan oo kale ayaa loogu doortay filimada ugu fiican sanadka waxaanu ka sheekeeyay inuu aad ugu faraxsan yahay filimkiisa isagoo da'weyn uu keenay hadda loo dooranayo filimada ugu fiican waxaan xasuustaa buu leeyahay filimkii ugu horeeyay aan keenay buu leeyahay waxaan xasuustaa waxa fariimo soo diray buu leeyahay Nawasidiin Suduuqi iyo Balki laakiin waxa aad ugu sii farxsanaa buu leeyahay markii Shaaruqan uu fariimo soo diray buu leeyahay waariyahay bandhigaagu Shinji Kaburo aad buu fiicnaa Shinji Kaburo waxa aad ugu faraxsan yahay in filimkiisa hadda ugu dambeeyay Lost Stories in lagu daro filimada sanadka waxa kale ugu muhiimsan aflaamta Hindiga waxa la soo saaray kaartada filimka lagu magacaabo Tufan waxaana jiray actorka Farham Akhtar filimkan wuxuu soo bixi doonaa October 2020 buu soo bixi doonaayo waxa la soo saaray muuqaalka ugu horeeyay Farham Akhtar oo ku jiraya buujimista filimka kan ee weyn Rani Muqrajana waxa la soo saaray muuqaal yar oo ku aadan filimkeeda Mardani 2 waxay ku jiraysaa askariyad la dagaalaysa ragga dhibaateeya dumarka way garaacaysaa way la dagaalaysaa iyadoo askariyad arkaysaayo filimka kan Mardani waxa lagu wadaa inuu soo baxo 13 December ayaa lagu wadaa waana Mardani 2 iyo qaybta horeyada keentay haddana qaybta salaad iyada keenayso marka waa kaayo bariyahan askarid bay gashan tahay kabtan askariga u gashan Rani Muqrijo waa kaayo askariyeynaysa Jordan waxa lagu arkay baa leeyahay nin aad ugu eg Shaaruqan nin aad ugu eg Shaaruqan baa leeyahay dadku baraha bulshada Hindiya bay qabsadeen waxa leeyahay warkan waa Shaaruqan dadkii baa sawir la galaya lagu leeyahay ninka kan ayaa aad ugu muuqaal eg baa lagu leeyahay actorka weyn ee Shaaruqan warbi weeyeen kan Shaaruqan saas uma muuqdeen laakiin dadku waxay leeyihiin Shaaruqan ninka aad ugu egyahay aad buu egyahay dadku leeyihiin waxa leeyahay waa ninka aadka uu isugu dhaweeyeen Shaaruqan mar isagoo telefoon ku hadlaya mar kale isagoo caadiya waa nin baraha bulshada qabsaday waxa leeyahay ninkan Jordan buu jooga actorkan buuna ay aad isugu egyihiin baa leeyahay dhan kalena Shinji Kaburo gabadhiisa Shanaaya bay inuu diyaarinaysa in filimada ku soo biirto waxay soo dhigtay baraha bulshada muuqaal iyadoo isu diyaarinaysa filimada sababtoo waxay soo dhigtay in ay u diyaarsan tahay qaybta dansiga ciyaaridda qofka ciyaarka iyadoo dansiga kala garaacaysa oo aad iyo aad u kala dhigaysa bay soo bandhigtay dansi qurux badan ciyaaraysa waxaana u muuqataa in ay aad isu diyaarinayso oo ay u diyaar garowayso inay ku soo birto dhawaan filimada aabaheed lagu magacaabo Shinji Kaburo war Shinji Kaburo baa dhalay gabadhan adeerkeed xataa waxa weeyaan Anil Kapoor way waa taqaan Mr. Hindi waa adeer waa ila Shinji Kaburo iyo Mr. Hindi soo walaalo ma ahan marka Shinji Kaburo baa dhalay gabadhan tan waxa uu sheegay Shinji Kaburo dhawaan gabadhiisa in dhawaan uu diyaari doono filim fiican oo ay filimada ku soo biiri doonto Shinji wuxuu sheegay Shanaaya mar dhow inay ku soo biiri doonto Bollywoodka oo uu diyaarinayo filim aad u fiican way ka shaqeyn doontaa wiiro filimada ma diidin aabaheed way ka shaqeyn doontaa filimada inuu ku soo biiraysa actorada ilmahooda filimada ku soo biiray maanta waa waqtigeeda kan hatta Karan Johar oo ah filim sameey wuxuu leeyahay Shanaaya hadda tababar ay wada diyaar been u tahay mar dhow markay fursad soo baxdo filim baan farta ka saayaraya uu leeyahay actor ninka la yiraahdo producer filimada ee lagu magacaabo Karan Johar marka ilmaha ay dhaleen actoradii hore markay sii duqoobayaan ilmahooda filimada ku soo biiraya Shanaaya waa ka is diyaarinayso gabadhu dhalay ah actorka Shinji Kaburo inta uu go'goynayna maanta wararkii aflaamta Hindiga sida ay nabadgeliyo